hay-adda Green Watch Trust ayaa maanta magaalada Muqdisho ka hirgelisay barnaamij dugsiyada cagaaran Green Schools Program. waa mashruuc loogu talagalay in dugsiyada looga dhigo kuwa deegaan ahaan bilicsan si ardayda Soomaaliyeed ay u helaan goobo waxbarasho oo doog iyo nadiif ah iyo in sare loo qaado wacyigelinta ku aadan daryeelka deegaanka iyada oo la siinayo casharro quseeya deegaanka. maanta waxaa ka faa'iideystay dugsiga hoose dhexe ee Yaasiin Cismaan ee magaalada Muqdisho. dugsiga Yaasiin Cismaan maanta waxaa lagu beeray ilaa 100 geed oo isugu jira geed mirood iyo kuwa la harsado. barnaamijkan ayaa ah mid isugu jira waxbarasho qusaysa caafimaadka, fayadhowrka biyaha, nadaafadda, dhirbeeris, wacyigelin iyo waxbarasho ku aadan deegaanka. mashruucan oo si mutadawacnimo ah ay u fulinayaan dhalinyarada hay-adda Green Watch Trust ayaa waxaa ka qayb qaadanaya 24 dugsi oo ku yaala gobolka Banaadir. sidoo kale qayb waxaa ka ahaa barnaamijkan tartan farshaxan oo dhalinyarada lagu ogaanayay hindisa maskaxeedkooda ku aadan farshaxanka. intaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay dhalinyarada hay-adda Green Watch Trust, maamulka iskuulka iyo qaar kamid ah ardayda. magacaygu waa Cabdifataax Maxamed Xareed. maanta halkan waxaa isugu nimid inaan sameeyno barnaamijka loo yaqaano inaan daafurno barnaamijka loo yaqaano barnaamijka dugsiyada cagaaran oo aan ugu talagalnay in dugsiyada lacag la'aanta lagu dhigtay public schoolska inaan dhir ugu sameeyno. barnaamijka waxaa la socdo qaybo waxbarasho ah, wacyigelin ah, qayb ku saabsan nadaafadda iyo biyaha. barnaamijkan waxaa maanta halkan isugu keenay ilaa 100 geed oo ka kooban 50 geed oo geed mirood ah oo aan ugu talagalnay ardayda iskuulada dhigato markii inay ka faa'iideystaan oo geedo nacfi ah oo fruits ah iyo sidoo kale geedo kale oo ah geedo la harsado. sidoo kale cashirada aan siinayno waa cashiro wacyigelin ah. waxaan ugu talagalnay inay guryahooda iyo bulshada ay ku laabtaan kadibna ay noqdaan deegaan dhowrayaal waayo cashirada aan siinayno waa cashiro ku saabsan in deegaanka la ilaaliyo. Cabdisalaan waxaan xubin ka tirsan Green Watch Trust. waxaan meeshaan maanta u imaanay si aan iskoolaha u gaarsiino abuurista dhirta cagaaran. waana filayaa inay ka faa'iideysan doonaan ardayda. waan rajeynayaa ardayda ku guuleysatay inaan abaalmarin siino. waan sii wadaynaa barnaamijka insha Allah. anigoo Xasan Jimcaale Xadaan ahna maamulaha dugsiga hoose ee Yaasiin Cismaan waxaa maanta nasiib wanaag u yeelan inay soo booqdaan dhalinyaro aad iyo aad ilaahay ugu maneystay aqoonta dhirta oo la yiraahdo Green Watch. dhalinyaradaas oo noogu deeqday inay noo beeraan dhir oo ay noo dheereeyaan dugsiga. waa ugu mahad celinaynaa. marka iskuulka Yaasiin Cismaan wuxuu ku yaalaa degmada Boondheere. wuxuu hoos tagaa wasaaradda waxbarashada. waxaa maalgelisay oo gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada. waxaa dhigata 386 arday oo isugu jira gabdhiyo wiilal oo ah dugsi hoose dhexe waay. keen Cabdullaahi Faarax oo dhigtay iskuulka Yaasiin Cismaan waxa uu mahad celinayaa ururkan uu dhiirigeliyay in oo geedaan oo maanta beeran dhirta faa'iidada ay leedahay faa'iido badan ayay leedahay. waxa kamid ah iskuulka soo baxday meel oo kuna sida daana lahayn oo beelaasha tahay magu waxa la rabaa in dhirtaas oo hergashid oo dhirtaas oo lagu nastay waayeelkii soo daana dhirtaas ay soo hergalayeen. waxyaalo badan ay leedahay waa caruurta kale oo soo nasanaan waa dhiganaa. anigoo magacayga Fadax Qaasim Axmed waxaan salaan qaas ah u tirayaa kuwii ku dhiirigeliyay in aan deegaankeena ka abuurno ama iskuulkeena ka abuurno meel aan ku noolnahay geedo qurux badan si aan ku harsano adhow geedahani. Ali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.